السلام عليكم ساعتين سنادنا ووقت الأمس إنها كما سيرت قفك من بالعادة كأنك أحيان السنة هي مير أما ريفلكشن هدي أد أركتد قف أن نعبتها يعني نعبك مبي وأري حوج المرة من استعمال بس قف آذن جعلان حب دقن كيسي إذا بعدي يسودو دقم يسودو كولا مع عامل أمدك الأولى هلا قف كاسو حسو حسوسينيا أو كتسيا قيب كمده شخصيتاada oo aad mar hore dayacday ama aad inkirtay oo aad wali aqbalan hadii aad aragtid qof kale oo dhaqankiisa iyo dabeecadiisa aad dibsanayso oo aadan jeclaysan oo aad ka helan qofkaas wuxuu ku yahay reflection mirror yani wuxuu ku soo xasuusinayaa dhaqan iyo dabeecad oo adiga aad leedahay balse aad mar hore goysay mar hore aad dayacday oo aad inkirsantahay oo aadan wali aqbal marka waxa arkaysa qofku inuu hebel waan cabaan iska nac hebel waan cabaan dhaqankiisa waxaan ku nacay wasa marka si u fiirisidna haduu ku dhahay hebel waxaan ku nacay asagii dhaqanku uu leeyahay asagii ay sheegay wuxuu qofkan kale ku nacay uu ku caanayo uu ku sheegay asagii ale daaminas waxay ka dhigan tahay in uu asaga wali uusan aqbalan dhaqankan dabeecadan xun uu qofkan kale ku caanayo uu wali asaga leeyahay marka haduu qof dhaqankiisa iyo dabeecadiisa ay saameyn ku yeelato oo ay adiga ku saameynayso waa in adiga isfiirsaa waa in adiga dib isku noqotaa waa in adiga muraad hor istaagtaa oo sida okay maxaan qofkan ku nacay tusaalahan ama aan ku jecleen dhaqankiisa dabeecadiisa ma laga yaabo in aniga leeyahay si dhab ah oo daacada naftaada ula hadal wallahi boqolkiiba 99.999% waxaad ogaanaysaa in dhaqanku uu leeyahay kulligood ma ahan laakiin intooda badan adiga aad leedahay intooda badan hadii aad si fiican isula hadashid oo been iyo khiyaal aad isu sheegin in adiga aad leedahay dhaqanka iyo dabeecad qofkan kale aad ku nacayso soo xaqad ma ama qofkan kale aad kaga musirsantahay marka hadii qofkan kale aad kaga musirsantahay inuu yahay qof hool karmeeda qof shaqaf inuu furfuran qof magarta hor u socod leh qof dhaqaaq sameeyay ya inta adiga waa leedahay laakiin si adiga ma aragtid taas oo adiga meesha isku mashquuleed adiga isfiirin leh waxaad ku mashquulsantahay qofkan kale soo xaqad ma marka waa waqti lumis waqtigaada luminaysa waxa aad qofkan ku nacaysa adiga iskale adigana waa leedahay dhaqan haybadaas iyo magarta xoog furfurnaashada iyo magarta inuu madax fudeedka whatever wax walba qofkan intuu caynaysa marka dib adiga isku noqo bilaadig anaga waxaan sunahay reflection muraayada sunahay xaqiiqad hadii adiga naftaada aad been qeyl isku inaad isku sheekayso aad ka baqayso saaxiib aad jeceshay oo daacad oo ogta inuu runlo yahay oo been qeyl aan ku sheegin u yar oo waxa dhadaniyo hab dhaqankayga ma waxa jir waxyaalo aad nacabtahay oo is leedahay qadarka ahaan waxa jeclaan inaan bedel ongoy سلله ودوا عن يوهو راح يوشى كله ماذا هذا قفان كلا عاد كنا على إنه مقرن ساي يعني إنه ويا هيدا قف معنا ذا يعني إنه بدن خيال بدن بوق بدن وحي أدينا والله ذا مركب وحابي وأنا خبطة وحال جي روح هذا shadow work عم ده inner work وأنا قبض وإن جذها أديك استدبي وإن حابب مركب هرا هاد أقبشت waxaan aad dhaqan ka inta bacdan oo aad diidantahay oo shakhsiyadaada kamida laakiin aad mar hore inkirtay mar hore aad goysay mar hore aad turtay waa inaad aqbashaa oo aad naftaada u sheegtaa dhaqankan xun waan leeyahay hasa ahaata ma aha inaan gooyo ma aha waa inaan aqbalaa laakiinse work improving on them oo aad dhistid ma gooyn kartid laakiinse in aad ahaa inaad yani consciously yani inaad ka warqabtid in aad leedahay dhaqankan dabeecadan xun laakiin si aad aqbashay oo ay qaybtaada naftaada in shakhsiyadaada iyo noloshaada ay ka mid tahay ya oo aadan gooni kar laakiin waa inaad aqbashay hadda marka saa u aqbashay oo aad ogaatid ya qofkan qalb wuxuu kugu sameeyay sidoo dhaqmay sidoo kula hadlo kuma saameeyay wax dhiba kuuma yeelna sababtoo ah adigiiba waa leedahay dhaqanka magarasa marka waxa weeye inta aad qof kale ka maseer lahayd oo qeyrkaada ah fadlan naftaada adiga dib ugu shaqeeyno naftaada adiga naftaada dib isku noqo adiga naftaada ku mashquul inaad ka maseertaa gabar oo gabar qeyrkaada kala 9 bilood ugu dhacay ama wiil ama qeyrkaada kala 9 bilood ku dhashay energy-ga iyo tamarta aad qofka kale siin lahayd naftaada geli ya is pointless wallahi waa maalanya waa waqti lumis qofka maxaad kaga maseeri kartaa waxna ma siin karto waxna ma diidi karto wuxuu ilaahay u qoray kama hor istaagi kartid irsaaqada ilaahay uu siin lahaa kama hor istaagi kartid ya inaad xasdid qof kale xasdid wax aad ka faa'iideysa adduunyo iyo aakhira midna ma laha so fadlan work on building on yourself ka shaqeey inaad dhistid shakhsiyadaada ka shaqeey inaad dhistid qofka aad tahay ka shaqeey inaad dhistid
magartay in aad sida adiga isu aad isu naftaada horumar u keen lahayd sida adiga aad u kor lahayd isu ballaarin lahayd soo waxaa garta ma sida qofkan kale aad ka masarsanta ama aad nacban tahay aad u soo dhawaysan lahayd oo aad ugu baran lahayd aqoonta uu leeyahay iyo waxa aad ku nacaysa ya cadowgaada waxaad ka dhigan kartaa xulfo waa la saaxiib kartaa saaxiib la noqon kartaa adigoo nacab oo aan istaagi karin ayaad soo dhawaysan kartaa oo aad saban kartaa oo aad wax ka baran kartaa hadhowta markaad jaanis ku heshidna ya dhabar ka tooga ama iska tuur waxaa garta ma sida ugu fudud oo aad ku burburin karta cadowgaada waa inaad saaxiib ka dhigtaa oo soo dhawaysataa sababta markuu saaxiib ka dhigatid oo aad soo dhawaysatid talaabo walba uu qaadi kara talaabo walba uu samayn doona waxaa garta marka waad ka hor istaagi kartaa si walba aad yeeli kartaa haddii kale third party يعني dad kale shaqaaleysiin kartaa oo dhihi kartaa okay meel hebel ninka maraya wadada laga xir yani no ani kumilay waxa sameey kumilay but I'm trying to tell you yani no hadii qofka aad aad cadow leedahay cadowga ma inaad la digaasho dishima waa soo dhawaysan kartaa saaxiib ka dhigan kartaa la saaxiib soo dhawaysa burburina marka sida ugu fudud ugu fiican oo aad cadowgaada ku burburin karto oo aad kaga guuleysan karto waa inaad la saaxiibtid oo aad soo dhawaysatid oo adigoo qosliga aad mintaxaawiso bartka aasha waxa gartama marka it's crazy wallahi adduunyada waxaad arkaysaa nin ragu ka maseeray nin kale dumarka waa iska caadi iska maseeraan waa waxba dhaqan bil aadanka waa wadlaan gibigeen laakiin inta badan dumarka waa iska caadi laakiin nin rago ku dhahay nin raga ah laba xayuunada baraba ya oo nin kale qaybkiisa ka maseeray is really yani waa wax lablaba wax laga yaqsoodo wallahi ya work on yourself ya naftaada ka shaqeey naftaada dhis mar walba ku mashquul sida aad naftaada ku horumarin lahayd sida aad isku ballaarin lahayd sida aad ku kor lahayd shakhsi ahaan waqtiga aad gelin lahayd qof kale oo qeyrkaada ah naftaada geli waxba kama qofkan si walba u xisdeed si walba aad ugu xanaaq ugu masarsantahay wax aad ka qaban kartid in aad noloshiisa isbedel ka samaysid malaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu talagalay qofkan inuu cuno cabo heerkaas ugu gaarsiisay maanta uu gaaro adiga ma siinin adigana kama qaadan kartid awoodna uma leh waxa kartama so allahi asaga waxa say adna wuu siin karaa dheh ilaahay subxaanahu wa tacaala tus inay waxaan kaa go-antahay oo aad inaad samaysid ya oo aadan xisdeenin qof kale oo magarta adoo kale ah ama adoon ilaahay uu untay waxaan gartama always work on building yourself work on improving on yourself ya mar walba ka shaqeey oo ku mashquul sida aad ku horumarin lahayd naftaada sida aad ku kobcin lahayd naftaada sida adiga aad isku ballaarin lahayd sida adiga aad ku kori lahayd haddii aad ku mashquulsan tahay ballaarinta kobcinta korista naftaada jaanis aad ku maseerta ama qof kale aad kaga maseerta heli maysa sababtoo adiga ayaa isku mashquulsan adiga ayaa isku xiran minjahaada iyo magarasa qoortaada marba magarasa ya marka waa waqti lumis in aad ka maseertid qof kale oo qeyrkaada ah wiil iyo gabar waxaa danta ahaa waa isfahansama وأنا فضلا دعسبتي سبسكرايب سهر الله ده كومنت بيعي شرقري وحن شكو دينا فيديوش عن صوكو صوت عدد قفا كومنتينج مرة أنا أقرني وده فيديوش نصو يراي بل وأركي أنا هدي أكون عشان فيديوش كجاوب 20 دقيقة أم 60 دقيقة يكون على درك كومنتينج نصو خور إن شاء الله فكر كني رأيي جن وإنه مهم أدب ما سنتي والسلام عليكم السلام عليكم باي